Maanta waxaan ka hadli doonnaa mowduuc yar ku saabsan magaalada qadiimiga ah ee Istanbul, ahna xarunta dhaqanka ee waddankaasi Turkiga. Waxaana iskortaagi doonnaa dhowr qodob oo ku saabsan magaaladaasi oo ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee Turkiga, sida Ankara oo ah caasimadda waddanka looga taliyo ama magaalo madaxda waddanka. Istanbul waa caasimad ka mid ah deegaanada ugu dadka badan waddanka Turkiga, sidoo kalena caasimadani waa xarunta ugu weyn ee ganacsiga, dalxiiska, dhaqaalaha, iyo dhaqanka, diinta, iyo taariikhda waddankaasi dhan ku duugan tahay. Caasimadda Istanbul waa magaalada keliya ah ee dhacda qaaradda Aasiya iyo Yurub, waxayna dhinaca ku haysaa dhowr badood oo kala duwan, sida Badda Madow iyo Badda Marmara. Xarumaha dhaqaalaha iyo dhismooyinka taariikhiga ah ee caasimadda Istanbul waxay ku yaallaan dhinaca Yurub, halka 3/4 bulshada ku dhaqan ama ku nool waddankaasi ku nool yihiin ama degan yihiin dhanka dhacda Aasiya ee Istanbul. Guud ahaan, caasimadda Istanbul iyo gobolka Istanbul waxaa ku nool ama ku dhaqan dad gaaraya ilaa 15 milyan oo qof. Ballarka dhulka waa 830.92 kiiloomitir iskuweer. Haddaad joogtid dhanka Yurub oo aad rabtid inaad soo wacdid dhanka Aasiya, waxaad isticmaalaysaa +90 21 6. Haddaad joogtid dhanka Aasiya oo rabtid inaad soo wacdid dhanka Yurub, waxaad isticmaalaysaa +90 212. Istanbul waa caasimadda labaad ee waddanka Turkiga ugu weyn, waana magaalada ugu dadka badan waddankaasi, waxayna ka kooban tahay 2 daamood oo kala ah Yurub iyo Aasiya. Waana magaalo aad u qurux badan, aadna caan ugu ah ganacsiga iyo dhaqaalaha saan horeyba idinkugu soo sheegnay. Dalxiiska, waxaana ku nool dad ilaa 15 milyan lagu qiyaasay oo qof, oo ka dhigaysa magaalada ugu dadka badan Turkiga iyo guud ahaan Yurub, iyadoo ka dad badan magaalooyinka London oo UK ku taasho amaba Ingiriiska. Berlin oo Germany ah iyo weliba Paris oo Faransiis ah waa magaalooyinka ugu dadka badan Yurub ay ka mid yihiin. Mahadsanidin.